saaka waxaan doonayaa inaan laba qodob ka hadlo ka ugu horeeya waxa weeyaan baryahanba bulshada qaar ka mid ah ayaa waxa ay ka hadlayeen miidiyaha dadkaasi had iyo jeer ale waxa ay ku hadlaan magac beeleed sidaynu ognahayba beeli weyn ka soo gudubnay waxa bilaamay wax la yiraahdo beelaha niman xalay ta hadlayo miidiyaha ku arkayay oo boqor Faysal ila iyo dakhare jilaal iyo suldaan ina cali madar oo ku hadlayay magac beeleed oo ila garxajis kan ka bilaabmay buurta gacan libaax nimanka waxaan leeyahay waraday rayaal qaab beeleed kan bari hore soo marnay dawlad baynu leenahay hadalkan aad ku hadlaysaan iyo magacan aad leedihiin waxaan ku hadlaynaa magaca beesha aad roo ballaarantay cidna mas'uul kama tihidin reerka dheeraad baad ku tihiin qolooyinkan boqor Faysal iyo suldaan cali madar waxaan leeyahay wardee reer baa u tihiin madax dhaqameed garxaj soo dhan uma tihidin adeer ku ekaada halka u tihiin boqoraad waxaan leeyahay marka hore barmadoobaad ku eed beesha magaca beesha anagu waa beeshaan adeer magaca noo daabaan ku leenahay ku hadal magacaaga nin muwaadin tahay magacaaga ku hadli kartaa waxa aan shacabka Soomaaliland aan ku baraarujinayaa waynu ka soo gudubnay waqtigii beelaha la isugu iman jiray ee lagu wada hadli jiray waynu ka soo gudubnay shuruuc baynu dhiganay dastuur baynu dhiganay dawlad baynu samaysanay dawladda loo daayo maamulka dalka iyo hoggaanka dalka wixii la garan waayo ha loo tago ha laga la hadlo wixii qalad lagu arko laakiin habkan aad ku baaqaysaan habbeeleedka war dalka waa idin la joogaa saddexdan beelood oo ku dhawaaqdaan ee tirahaan beesha dhexe iyo labada hareeraha reer Soomaaliland saddexdaas oo kaliya maaha beela kala jira haddaan tusaale u soo qaato waxa weeyaan beesha Gabooye oo 6 gobol ee Soomaaliland degan tahay ka kooban tahay degan oo tira ahaan marka beel ahaan loo eego ugu badan adeer rayaal wadanka waa la degan yahay ka daaya dadku waa muwaadiniin tagistan idinkiiba isriyanaya dhaxdiiniiba isriyanaysa dalka waa la idin leeyahay ka xishooda waxaan aad ku hadlaysaan ka xishooda muwaadiniinta kale xaq bay u leeyihiin xaq dhowra qodobka labaad ka hadlaya waxa weeye waa golahan wakiilada ee iska fadhiya uu meesha golaha wakiilada 82 xubnood ee golaha wakiilada uu ka kooban yahay waxaan xasuusinayaa muwaadiniin idinka idin la mid ah oo 82 naas oo kala ah ayaa muddo dheer sugayay in la soo doorto oo xaq u leh in cod shacabku ku soo doorto oo kuraasada ay ku fadhiistaan oo idin bedelaan muddo dheerna ummadda waa hor fadhiyay waana gabteen hawshii ummadda u hayseen marka waxa aan ku boorinayaa cidda ka mas'uulad doorashada inay qabato oo darafyada ay khusaysaa ama fulinta ha noqoto labada xusb qaran ha noqoto saddexda xusb qaran ha noqoto saddexda xusb qaran iyo fulinta iyo commissionka darafyada ay khusayso doorashadu waa in si degdeg ah ay soo arkaan oo muwaadiniinta xaqa u leh inay bedelaan kuwan xuquuqdooda la eega doorashadan dib inooga dhacaysa markastana waa in la soo afjaraayo dastuurka lagu socdaa dastuurkii haddii aan lagu dhaqmayn oo shariicada islaamka lagu dhaqmaynin waxa weeye waa mid subxaanallah dib looga soo noqdan leeyahay tan ugu dambaysa waxa weeye xeerkan la leeyahay kufsiga waa xaraan weeye ilaahay baa shariicatul islaam dad muslimiin nahay shariicad bayna loo soo ilaahay inoo soo dejiyay way ku dhameystirantay shariicatul islaam xagga kufsiga way ku dhameystirantay shuruucda islaamka ilaahay kama aqli badnin nabiga kama aqli badnin ma qaadan karno qodobo yar ama xeerar yar oo bili aadan aan ilaahay aqoonsan soo xariiqay mid kuma dhaqmi karno hal loo noqdan lahayd shariicada islaamka hana la laalo xeerka kufsiga hal la laalo. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.